الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 4tii bishii July 2020 ayaa abaara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxsho walxaa qarxay wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii waxa laga badbaadiyay inuu san gaarin goobta asagana wixii uu ku soo talagal uu san gaarin dantu lahaaba kala haadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan darbigaas mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo waxa falilaha alxamdu ilaahi ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacab soo gaaray iyo khasaare inta ka badan oo meesha ka dhashay kaliya waxa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kana tirsan laanta isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin hadda waxa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo isla markii loo qaaday goobaha caafimaadka sidaas daraadeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen ma jiraan wax khasaaraha inta ka badan khasaare naf iyo maal laho kale ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas cid kale oo ciidanka ahayn waxba kuma gaarin waxa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday ilaahay ayaa ku mahadsan wax su'aalo ma jiraan aad u mahadsantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dib baan idinkaga soo ogeysiin doonaa wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan idinka siin doonaa laakiin waxa idin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah aad u mahadsantiin